munaasabad ku weyn guud ahaan qulubta shacabka Soomaaliyeed waa munaasabad aynan ka hor magac lahayn waa munaasabad qarannimada Soomaaliya ayaan ka horeyn munaasabadaas ayada ah ee dhammaanteen caawa halkan aan ugu wada dabaaldegayno inaan ku soo dhaweeyo dhammaan mas'uuliyiinta nagala soo qayb gala munaasabada ayada ah aqalka dawladda hoose oo runtii ah halkii ugu horeysay ee koonfurta Soomaaliya ee gumaysigii Talyaaniga ka qaadatay xorriyadda laga taagay calanka Soomaaliya caawa oo kale ayaa laga taagay magaalada Hargeysa oo ku beegnayd 26 Juun 1960 balse muddo kooban kadib bakowda Luulyo ayaa mar kale laga taagay aqalka caawa aan ku wada dabaaldegayno halkaas oo xorriyad laga xoroobay gumaysigii Talyaaniga iyo calansaarka koobaad oo ahaa ka xoroobidii gumaysiga Ingiriiska isla markaas calantaaga halkan laga taagay wuxuu ahaa midowgii labadii gobol ee gumaystaha Ingiriiska iyo Talyaaniga ka xoroobay mas'uuliyiinta heer qaran ee caawa halkan joogta ayaan faahfaahintaas u daynayaa balse kaliya waxaan halkan u soo istaagay inaan madaxda kala duwan ee caawa halkan nala joogta aan iraahdo ku soo dhawaada aqalkii caasimadda Soomaaliya ku soo dhawaada aqalka dawladda hoose wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.